أبو يوم تان عيدي والله شيكو أو شيكوين كالصومالي عنك هو والله شيكو ومدول ودور عشرات نقنيس عشرات بموت راعي كرا هدي أينو ما أنت سوق هذا نمد أنت كسوق هذا إنه متان عيديد إيو عليدان إيو شيكدو دي إن يرحضينو كتابا إنه وحن كوريستي دور أطي انتي عندك كانوا روريني نيكا عبد الله معلم دودان ليراه عشرة دم كدوما شيكداس وقاسك إمك رير كيف فديانا واكوريست وحن كوريستي وكله nin waligii halkaa oo la jiibay oo la wada yaqaano oo la yiraahdo maxamuud buuxablo reerkiisa waxa kaloon ka waraystay ismaaciil cawad geesood oo taariikhda ninkan waaxidan laga waraysta inta soo nin ayaa sheekadaasi aan ka waraystay kelmad laba kelmadood oo ay meel ku kala leexsan yihiin waan arkay laakiin sheekada inteeda kale laguma kala bayrin waxa la leeyahay kolkii hore ayaa waxa jiray qola kabara oo asafar kan imka baayaca mushtariga ayaa marka uu tago xagga la oran jiray kabarahaasi ayaa wuxuu qaadi jiray dhar iyo raashin xaggaana wuxuu kaga bedelan jiray xoolo iyo subag iyo malabuun iyo harag oo ma xoolo nool harag subag iyo malab oo may jirin lacagahan iyo waxa la leeyahay sida sheekadu nin wacays la yiraaho oo nin reer Axmed ayaa halkan xoolaha ka qaadi jiray ninkaasi wuxuu ku dagay reerugaas ninka reerugaaskii markii uu ku dagay ayaa xoolihiisii la boobado xoolo badan baa la dhacay nimankii reerugaas oo waxa dhacay reer tarar nimankii reerugaas iyo qolada reer xandulo malaha xulufo ahayd kolka oo calidan iyo nimankay walaalahaayeen iyaguna halka la jiray ayaa waxa gabiyay ninkii wacays la oran jiray ee reer Axmed magaca iidoor la yiraahdo waa ninkii lahaa iidoor oo dhan magaca saameeyay ninka kaliya baa lahaa ee maanta qabiilka isaaq la yiraahdo iidoor loo yaqaan isaaq ma wada lahayn awalna ma wada lahayn Axmed nuuxna ma wada lahayn xitaa ninkaas un baa lahaa kablada iidoor la yiraahdo halka ka bilaabantay halkaas wuxuu yiri dawlooy baay reer ogaasla nagu dayn waa haddii duubigii nool yahaan lana danqaabeen isagoo canaananaya kolkaa ninka meesha saaran haddii duubigii nool yahaan lana danqaabeene dawlooy baay reer ogaas lanagu dayn waaye imika hadhuub laga dabsiin deere iyo luule imikay darmada ii rakibi dahabadaydii dilmiyaan ku sugi xoolo waa dooga soo baxay gabaygaas u tiri nimankii baa xanaaqay reerugaas hala tiri wacayso nafaka hantaa ticin oo heedhe herer baa la geyn hadal xumaanta watay haleeladu darta harada oodnayde hubkana maanan dhigin sheeran maal soo hankoobsadaye hantidii maxaa maqan haddaan heegankeed geliya buuri kolkaa xoolihii oo dhan waa la soo dhiciyey dagaallo xunxun baa ka dhacay laakiin maxaa ka maqnaa bahal cunaabi waaweyn oo raggu xidhan jiray oo makaawi laydhaa ayaa nin mataan ciideed laydhaa iska qaato mataan ciideed ayaa qaatay kolkaasaa wacays baa gabiyey wuxuu idhi ma makaawigaygaan garduurlama mushaaxaynin ma mataanka xidhan baan dartii loogu mari waayin gabaygaa ayuu halkaa gabay dheer buu mariyey markuu kaa mariyey ayaa mataanna intaasunbuu doonayey inuu yidhaaho in ninkaa iidoor yidhaaho mataan la'aantii dalka lama joogi karo mataan baa faras
صادري walaalkii buu soo diray wuxuu faradka fuul kaana kaxeeyo wacaysado sida ii keen wuxuu yiri intuu markuu keenay baa wuxuu yiri shanta reere baxawaadle waa kala shisheeyaan mashiinida shafiyo gowrac waa kala shishlaadaan labadeena noo shaarignaa shuqul xumaadeene rag baan sharadii beenaynayay kuma shideeyeen hadday sharaf lahaayeen bariyaa soo shafeecsaday hadda shayadii ku hore sharci la qaado wuri oo halkaas uu ku soo siiyay arrintii oo caynkaas oo arrintii ay muddo yar dambe ka dambaysay oo xaalkii la ilaaway ayaa waxa wada haasawo tagay oo isa soo raacay sida la leeyahay sheekadu leedahay cali dhan iyo mataan ciideed habeenkii bay dhaxeen maalintii oo dhan bay cidla ku gaajoonayeen habeenkiina cidlay ku dhaxeen subaxii bay reer yimaadeen reerkii markuu yimid raggii waa naga maqan yahay xoolina way dareereen dacaana ciiran haynaba la ciirtii baa loo keenay mataan baa noo keenay markii uu mataan cabu ka dhargay ayaa cali kacay markaasuu yiri maxaad u cabi weyda caana maana cali dhan lay garanaya reer hebel buu ciirka cabilay odhanayaa buu waa mataan caana uu ka dhargay mataan halkaas oo caraysto tuuba وأنا ما حد كعيل بحلا والله إنك أول حمد كعيل بحكرت هذا ولا شيء كورسده هون ترى هذا هو كدقن صلاة وصقت فريس أي علي ولا ليين ولا سي ولا مهرية هوينك كمود دقن برجي تنبه هري تبي مركزي إنه من البوت دقت وحلو قاعد إنه انتهي markaa mataan oo maqan ayaa labadii reer isqabsadeen waxaanu doonaynaa baa layidhi in inanta lanoo furo oo hee shan loogu furo dee mar hadday caynkaa tay dee xoolihii soo celiya xoolihii oo dhan bay celiyeen inantoodii baa loo furay sidig hal isku sidkanoo fallaag laydhaah iyo faraskii caanka ahaayo mataan ciideed lahaye fayr la odhan jiraa la siiyey markaasuu gebiyey ninka haddana عريدان إياه ولالكي فرحة بمدو أهمو يعني مدبا قبيي سيديكتي فلاق إياه هدي فير بلا إيسيي oo inantii ka furan tahay oo faramadow joogto mataanow aduun baa figle fayda kuma raacin inaan ka fashin bas sidii faral ilaahay laftaba ina kaaga jari ayaa waliba faral ilaahay gaabu mataantii markuu maqlay nin mataan yaqaano ciid jooga u dhaaranaya ayuu iska soo dhaqaaqo inantoodii wuxuu yimid salaado oo warqadeedii la siiyey dee xaalku soo ahaa mooyaane kolka la furayna ma joogna reerkooda furay aqalku iska soo galo wuxuu aniga waxba igama fura cali baa loo sheegay leeyahay wallahi waa ka ku jira mataan aqalka cali daniilantoodii buu yimid oo wuxuu yidhi ayaa kula jooga oo tiri waa layla joogaa yaa kula jooga mataan uu soo baxde waxay tiri maanta labadayda lugood dhexdooda aadoo ku jiro walaalkay soo galo ma doolan karto salaado aniga iyo nin ciid jooga lanama kala qariibu kadinku isu taago baxad uu yiri buu xaga kale uga kudiyay haddaan hooyaabu yani nin ciid joogaaba inuu dili karaayo hadduun baan gartay arrintii cirkay gashay hirig bay noqotay dee boqol qaadan mayna boqolkii ninka magtiisa iyo boqolkii ummatan ragga dheeraa baanu rabnaa baa layidhi labadii boqol halaad baa la bixiyey labadii boqol halaadee la bixiyey ayaa nin duba la yidhaa cadan ka soo gabiyey oo laygu yidhi wuxuu ahaa nin sacad yuunis wuxuu yidhi niman baa mataan gowracay oon gootadaa bixinne gayiligu nastaabuu ahaa geday jabiyeene goblayay xuseen xaday muxuu gool u xuseen xoday muxuu gool u qalan waayey gabaygaasu soo diray waxay tidhi walaashii mataan ciidadaniyo wiilkaa iyo doorbuu meel laga wada jooga kolkaa ninkii ay ninkan walaala ahaayeen kufrow inaad dubaan ugu kashife kooskii caadan weyne hadalkiina soo wada kuliyo kunoo yidhi yee lagu yidho warankii
علي دانو جيدكii ku tiirsan baxay kala uga bixiyay waranka علي دانا halkaas ku dhintay waar magtii nasiya de waa kore boqolkii qaata waar boqolkii halaad aan ka bixiyay labadii boqol halaad aan ka bixiyay mataan ayaa rabaa te mataan la qiimo muu hayne ninkan cali buu haado nin caadi buu ha ninkan caadi mataan caadi buu dhaafsanaay ka daaya wala diiday wuxuu yiri ninkii ay walaalahaayeen calidan ilaahay hal diid baxawaad lana hal diid ana hal diiday wuri ilaahay hal diidiyo inuu walaalkay soo nooleeyo calidan waa diiday wuri baxawaad lana hal diidiyo inta daraad ka bixiyay mataan in ka yar inay isiyaan waa diideen wuri ana hal diidayo inuu cali mataan ka hooseeyo waan diiday wuri halkaas lagu kala tagay waa ka gabayada badan tiriyay maqasheen haddaan caynabo cuniyo guluf xata kugu raagi waxad codba way tahay haddaan caday ka dhuubnaane haddaan cududahooda isku jabin cuurka baxawaad cadla quutamooya haddaan caana laga dhaar sida loo calool qaba haddaan cali ka weynaan calaano calay dhalay haddaan dunida ciirin buura damana qumbilo duriyu bariga haystaniyo waan lagu weynaan ogayne waxa adduunka ololinaya garan mayne aduu gabayada caynkaas tiriyo gabay kaluu tiriyey oo uu leeyahay matunka ay buuxsamay sidii 10 jir urgaala wuxuu yidhi sida ari tigaad cunay miyata haladii waay sida xoolo toos qaba miyaan tiba madoobaad tirayo iyo cilmiyaan tiba madoobaad sida ari tigaad cunay miyata haladii waay matunka ay buuxsamay sidii 10 jir urgaala ma tallaabadaydan haldhaa orod wax tuugayn ma tumaatidaan hidin karaa tu alla mooyaane balaayadan itaabale miyaan tiigsan kari waay buudha waa gabaygaa tiriyey muu dhammayn maalintii dambe waa ka cabdi dilay markuu soo dilay ayuu gabaygii dhammaystiray wuxuu yidhi macabdaa turaabka isku robagay waa tabtaan wadaye goortaan ku taagsaday miitana ayuu reemay ma tumaatidii baan wadnaa tahaan wax weydaarshay dhurwaa libaaxuba dhurwaa 10 kuna ayuu tulud ka qaadaaye ninkii farayaraan igu tuhmaataana ka hoostaaye walee aniga waa lay taxgeli teerinimadayda gabayga caynkaas ahaa waa kii tirin jiray waa kuwa lagu kala qaxay waa kuwa mareexaan u galay nimankii reexantu mareexaan bay muddo la yaalay markaasaa waxa isdilay nimankii la odhan jiray ree dalal iyo nimankii la odhan jiray makaahiir aad baa la isugu madha nin ka mid ah baxawaadlaha ayaa u tegay nimankii reer xandun wuxuu yidhi niman yahow waa la isoo kiin diray waxaa la yidhi ninkii aad disheen waa ka kacay cabdiye dambe ninkii hore ee cali dhan ee laydinka dilayna 200 halaad qaata intaasi ayaa laygu soo diray waa inoo maalintaas iyo meel heblaayo meel labada beelood u dhaxaysa oo labadooda reer midna ahayn buu kula ballamay qoladii kale uu tegey wuxuu yidhi nimankii way jabeen xoolahoodii way daltabiyaysteen meelaan xoolahooda ogeyn bay tageen waxay doonayaan magtii sidaad doonaysaan inaad u bixiyaan oo maalin heblaaye iyo halkaasaan kula ballamay qolaba 20 nin buu la soo ballamay xoolo badanna meeshii buu ku riyo lagu qalqasho labadii qoloba waa yimaatay kolkaa qoloba afbuu kula hadlaysa uma aha labadiina qolayba maxaan ku yidhi buuri qolo waliba wixii uu ku yidhi bay sheegeen labadiina qoloba been baanu sheegay buuri ee waa rogmanaysaan haddaa intaa kala maqnaataane 20 soo ma ihdin haa iminka isku bilaabo istila oo kii roonow reerka waxaan hal la yidhaaho haddii kala heshiiya isla faraskiisubuu ku booda labadii qoloba waa qabteenoo adoonna xukumo mooye inaanaan kala tegin inaanad dhaqaaqin baa intaa dhaari naga taa la yidhi ninkaasi halkaasuu ku heshiisiyey labadiinna markii la heshiiyey ee heshiiskaasu dhacay ayaa waa ka gebiyey faaraxaf
wuxuu yidhi dabagaal abeeso dushaasuu ka qabaado inuu duur la huluusho dareen baa kala gaadhoo diidyo aamini maayo tuntuba ciidna ka maydhayna tubaax loo dhici maayo waa ku daalahaya dalkeennii baxa waadlana wuu daandaansi badna dhallintaa dalabta dawliskaa murankeena dilaalkaa kabadhaa xaajadii baduraad xaaladii baduraad duulbaduul wax bidaay ilaa deelka qur-aanka iyo dalaaq lay maqashiiyo halka reer dalal joogo abad soo degi mayno buuri 20 ninba 3 dalaaqood iyo kitaab bad u mareen maalinta ay halkaa ugu mareen dhaarta ayaa la heshiiyey ayaa nin wuxuu yidhi xayla laydhaa mar haddaynu heshiinay ibraahim waynu jabin makaahil ilaah baan kugu dhaagnay faaraxoo waad gabi doontaa gabayga igu soo dir dee dagaalkii dambe la isugu yimid waa kii way guulaysteen waa kii deeta gabyaayay faaraxafay raggii aniga ila khayraha qabax markuu siiyey waa tii aan xamar qaayimow qoorta kaa rogay quuri ciid balaado iyo halkii la isku qalanaayey raggii aniga ila khayraha qabax markuu siiyey waa tii aan xamar qaayimow qoorta kaa rogay markaa qaashka way soo rogtay ayuu qubay makaahiile qumana xayla wuu garan halkan qiimi ku lahaa buuri ninkaasuna intaasi ayuu halkaa ka iibsaday intaa aan kaga baxno sheekadii dee manaan kala badhin sheekooyinkoodu waa sheekooyin aad u dhaadheer